xalay showgeedii habboonore wuxuu noqday mucjisadii fanka waxay noqotay inanta kaliya kala xiratay caasimad bandhig fineedkeedina wuxuu noqday kii ugu dakhliga badnaa waxaana uga soo xarooday lacag kor u dhaafaysa $100,000 30,000 ka mid lacagtaasi oo aysan ku jirin tikitka showgaasi cash ayaa loo siiyey 24 25 26 27 28 29 sidoo kale habboonore waxaa la guddoonsiiyey 500 gram oo dahab ah oo qiimihiisu uu dhan yahay qiyaastii $10,000 وهذا الخلاف يا تقاو ترى صعب قالوا العيدين صعب iyadoo xukuumaddii gogol nabadeed ku dhawaaqday salaadiintii Soomaaliland u yeedhay salaadiintii iyo dawladuna isla qaadatay in nabad lagaga shaqeeyo bari anuu waxaan ka tagay iyagoo colaadi ka taagan tahay halka laga dhaqaajinayna iyagaan uga dambeynaa xukuumadda iyo salaadiin qofka la shakhsiyadda boqor burmud oo kale wuxuu u yaqaanaan ama wuxuu ku tilmaamaan dadka ku nool koonfur ilaa inta laga gaaray Kenya iyo Ingiriis calaashan qof la qabsan kara markiiba deegaan dhaqan iyo dad kala nooc ah dadka noocaas oo kale ahna wuxuu yaqaanaan dadka reer Somaliland joker hadda boqorka ma jirtaba isaga cid kaga xogaalsan bariga Sool ama waxa tiraahdaa cid kaga xogaalsan warsangeli iyo dhulbaahanta hadalkiisna waxa ka muuqda boqorka quus sida soo soo quustan wuxuu rabaa boqorka ayagana inuu soo quustaan xukuumad hadda joogto oo nabadeen bismillaah saaxiib marka hore soo dhaw marka xigta muuqaalka fiigeeso meel fog gaar aan ku hormaray showga habboonora showgii xal ka dhacay Hargeysa show lama oran karo uu soo dhaafay wuxuu ahaa bandhig qaran xalay Hargeysa meel la istaago ama meel la maro ayaa la waayay waxa soo umaysa soo bixin hees iyo show waxa soo bixi waxay ahayd jecel ay u qabaan Mrs Somaliland habboonora caawa way ka nasiib badan tahay hablaha dhigeeda ku haysa afka Soomaaliga ilaahayna wuxuu dooray reer Somaliland waxa jira darajo ay bixiso ama ay bixiyaan boqortooyada Ingiriiska darajadaas oo ah in qofka magaciisa laga hormariyo Sir Alex Ferguson Sir Mo Farah inkastoo darajadaas mid lamid ah aysan ka jirin Somaliland laakiin taa beddelkeed waxa jira darajo ay bixiyaan dadka reer Somaliland darajadaas ilaa hadda dadka reer Somaliland 3 qof ay siiyeen waxaan dhici kartaa inay jiraan qaar kale oo fara badan saddexdaas qof ay kala yihiin أنا آدن كان لبعضنا وبيكي قف سدحنا وحنا نقطي هابونورا غير مقدسية سوماليا با هذا وحومي لها هابونورا بل وحي أفرين وده كحرنت أيجن وحنا كرر عادي مجحومه ومدن أو 6 مليون إن اسكسر الرعان إن لفعل تمان قف مرتيا ولي بضمر ولا قرح بنا هدي بيشرتبه غير مقدسية إن كتر سنة ينقلد أم الدنبي إن أنت سوحي هاد إن اسكسر إليان أم إن حرتان لكن إن لفعل تمان قف ضمر ومرتيا ولیدنمو وانا عیبان ka hari doonan kaftan kan uu ka xiran yahay xamar iyo Hargeysa saddex galaan markii hore raali kama ahayn xukuumadii kala dambeeyay Somaliland qofkii taga xamar isagoo huwan magac Somaliland waa la xiran jiray fanaan siyaasi wax la mid ah fikradaasi isku milanka wuxuu ku imaan jiray dhanka magaalada Muqdisho iyagoo joodkoodu yahay inay soo jiitaan oo ay ku sameeyaan brand wash daayarta Somaliland taasna dhibaato ku qabto Somaliland midana hadii maanta ay joojiyeen quliye xamar ayna yiraahdeen Hargeysa meedka ay sido taas waxa uu tahay guul Somaliland taas waa qodobka labaad qof hadda jooga Hargeysa wuxuu tagaa xamar waaxiiso inuu soo arko laga yaabo qofkaas inuu xamar u tago duruufo dhaqaale ama duruufo amni labadaasba xamar waxa kaga fiican Hargeysa hadda habboonora show hadda u baahan tahay wuxuu joogtay hoyga fanka Hargeysa ku qabsan lahayd show waxa uu tagtay xamar waaxiiso iyo in taariikhda fanka ay u gasho inay xamar show ku qabsatay xiisahaasi habboonora ayaa ka dhigteen reer xamarka ama u qaateenba mid ku doonayso dhaqaalo ayuu ku duganay reer xamarka showga ay ka baajiyeen habboonora ay social media waxa ku soo bandhigayeen muuqaalo ayagoo siita madibado ama baaquli marwaabtaashay in uu qaato meeg ugu caab laakiin marka laga hadlayo runta dhaqaalaha yeela Hargeysa ma yaalo xamar sida wadan kasta ugu horeeyo wadan kale ayuu ugu dhaqaale badan yahay sida hadda Hargeysa ugu horeyso xamar ayayna ugu dhaqaale badan tahay xalay waxa uu ahaa reer Hargeysa mid kamid ah habeenada buufiyaan nacabka wacdari xalay dhigeen reer Hargeysa waxa ugu dambeysay xilligii Muuse Biixi waliga reer Somaliland laba midba ha kula loolamin mid koowaad qadiyada mid labaadna ficilka labadaasba reer Somaliland way ugu horeeyaan Soomaalida kale heystani markii ugu horeysay maqlo waxay ahayd qiyaastii 2009 ilaa 2010 waana heys ka tarjumaysa wadaniyad iyo dal jacayl waa loo dhashaa wadani la iskama dhigo heystani waxa dib ugu luuqaysaa habboonora
waxayna ku socotaa heystani ciyaar xamar iyo Soomaaliya waxayna u sheegaysaa inay jeceshahay dalkeeda iyo dadkeeda midana dambi kuma lahan haddii ay jeclaato wadankii iyo calankii ay ku hoos dhalatay ayna ku hoos barbaartay waxaa lagu magacaabay inta badan fanaaniinta reer Somaliland qadiyada ay aaminsan iyagoo la leeyahay fanaan Soomaaliyeed noqon calanka buluugga qaado calanka buluugga ah miyay ku jirtaa Soomaalinimadu jawaabtu waa mayo sidoo uu yahay fanaanka jooga xamar iyo kan jooga Djibouti isagoo mid walba uu sito calankiisa fanaan Soomaaliyeed ayuuna u yahay fanaanka jooga Hargeysa isagoo sito calankiisa fanaan Soomaaliyeed intaas waxa dhaafsiisan waa isdulle aan ku duleeyay waxaana qurux badan qof kasta in lagu ixtiraamo qadiyadiisa aan ku laabto intaan ka bixin qodobkaasi shakhsiyadda fanaanka Soomaaliyeed sababtan uu yiri Habboon Nuura maanta wax ka nasiib badan tahay hablaha dhigeeda ku haysa af Soomaaliga waxay tahay hadda inta idin muuqata waxa ka mid tahay hablaha ku haysa af Soomaaliga magaceedu waxa la yiraahdaa Laki Xaaji Wacays waa gabar qadiyad leh heesyada inta badan wax u badan yihiin gubaabo iyo dal jacayl reerkeeda san filay waa daarad gaar ahaan beesha Mareexaan dhawaan gabadhan waxay tagtay Muqdisho waxna kala kulantay dhacdo aysan wiligeed ku fikirin ayada ka sheekay doonta dhacdadaasi waxa lagu ixtiraami waayay inay tahay qof dumar ah waxa kale lagu ixtiraami waayay Soomaalinimada kaarkeeda la xoqdo حتى تليفون كيسة مركان أنا أكتيس أنسو استاجي واحد مسكحدي ذكوين تليفون كيسة صور كي يقول كويستا وحن ليا بنا صور كي يتصي لكن تليفون صور كان متخانة مركز أبو أنت كان تانده ويا بنا هبا أنا نينك وحوي عبارة كده بوحو يري محا عندها كاغد علاكيه مركز أنا أبو لما بيوتكي يو حوجا ماشين وكحنون صان لها أفرع عشان مقنايو كل الحنا وكجريان لها مركا لكن هذا وافي عنها الحمد لله markaas yiri lakiyay hada qof ilaahay wax siiyana waa tahay bal day afgaro bal $1 igu soo tuuro yiri qof ilaahay wax siiyana waa tahay marka ka badin maaye markaasaan anigu waxaan dhahay oo aboowe ani waan nahay marka oo markaas uu yiri day isgaran lakiyay arin jaqbay igu tahay marka xataa haddii lacala uu idhi la xataa waa wiil Soomaaliyeed 200 iyo 100 iyo sheenadaas haduu gali lahaa waxbay ahaan leedahay waaba naxay $1 meeshu u wada deegaran maayo anigu koowde ani ala ay taxal anigu waa naxay markaasaan dhahay walaal qof baad laga qaado waa ka weynahay baasaboorka waa kanayaan dhahay maxal iyo hana iiga dhufan baan dhahay ileen markii hore wala iigama dhufanno waxa la iigu dhuftay waraaqa la iigu dhuftay ma ogtahay Mareykanka u socdaayaan dhahay iiga dhufan inaan dhahay marka maya dhafasho iyo waxas maba lagaaga dhufanay taas ma isku hayno yiri tan baasaboorkan u dhiibay ilaa hadalkii waa diiday Soomaha aniga waxaan dhahay waxaas anigu qof la dhaco waa ka weynahay marka soo in qof kastaba soo goolad yar soo kuma jiro nimanka migrationka mid inta ku jira daaqadii ku jira Soomaha marka حتى كون عدانك حتى يوروبيانك يا مeel kasta markay aadid markuu qofkan xoogaa ka shakiyo qofka ku dhow ayuu u dhawaanaya markaas uu leeyahay ila fiiriyo leeyahay Soomaha atoorahan marka ani asaga isla hadalnay kadib buu ninkii geeskiisa fadhiyay ayuu baasaboorkaygu u dhiibay xagga u wareega la dhahay no ila hadalkii waa diiday maahno xagga u wareega la dhahay dhinaci kale ayaan marka kadib aan u wareegay marka waxba wili ma fahansanaya aniga markaas waxaan la yaabanahay ninkan Laki Xaaji Wacays isku dhahooyo oo sawirkaagi in telefoonkiisa ku haysto haddana xagga u wareeg muxuu ka wadaa ilaa dadna meesha ma taagnay ani kaliya taagan ninkii waxa dhahay ishaadii ishayda halbiqsanay soo fiiriya la dhahay horta ko waa fiiriyay haye haddana waxa la dhahay xijaaban markii xirnaa xijaabka gadaal u celiya la dhahay si aan dhafoorkaaga aan u arko xijaabkii aan gadaal u celiyay amar dawla madiic haddana waxa la dhahay garkaaga banaanka keena la dhahay garka ilaa waxaan watay maaskan watay maaskii marka hoos un baan u dajiyay Soomaa maaskii aan hoos u dajiyay maaska dhan furaa la dhahay waa furay haye haddana gees fiiriya la dhahay intaas dhan aniga ma hadlooya ilaa waa isubaayo qalad igu ma jiro laakiin waxaan isleeyahay sharcigoodii iyo waxoodii ayay marayaan saana dadka loo baara dabcana isdhooya ani waaba yaabanaybo Muqdisho migrationka gees u fiiriya la dhahay geeskaas fiiri dhinacaanaga oo dhabanka la fiira haddana gees kale war heedhahaya maxaa qaldan baan dhahay wax ii sheegade Laki adiga in baasaboorkan isku ma ekidin adi ma lihida la dhahay yaa ani maan baasaboorka leenaha oo anigu dal iyo dibad meelaan u kala gooshin adduunka ma lahan dhahay Mareykan 10 sano visa ii saaran waa u jeedine
maxay tahay ilaa Australia ilaa Mareykan meel aan aadin ma jirtee maxaa wax maxaa idinka qaldanaan dhahay maxaa dhacay adi malid maxaa ka wadaa maya anagu waxaan gudanaynaa waajibkeenan gudanaynaa anaga laki margeration aan anagu xanaaqna baayo maya xanaaq ma jiraan dhahay aboowe wixii adinka aad go'aan aad ku gaartaan bal ii sheega laakiin yuxyux maanta dhan ha isku dhihine bal wax un ii sheega oo aniga aad idinkaga jaahil bixiyo haye goormee baasaboorka qaadatay xilligaasan qaata baasaboorka haye baasaboor kalaan lahaa baasaboorki kale waa iga dhumay markaasaan kan aan bedashayaan dhahay kii hore ma haysaa ayaa lay dhahay ma hayaan dhahay baasaboorki hore sawirkaanaan anaga ka shakinay oo kuu saaran maxaa caddaynaya inaan adiga leedahay war niman yahow wax kale ii sheega anigu hadda Holland waa ka soo guuray Ingiriiskan deganahay deganaashayga Ingiriiska ma idin tusaa haa deganaashayga Ingiriiska haddana u soo bixiyay waa u dhiibay war waxaanan xataa oo aanan waajib aanan ahayn inta wax un wanaajiyan isleeyahay oo maanta diyaaraddaas u yeekaa reebin markaasaa waxaan soo xasuustay ninka inuu afgara u dhahay haddana ninkii haddaan oo waryaa saasaad i tiray waxaan isleeyahay armay haddana dhibaatada kale ku timaada oo laga reebaa diyaaraddiyan isleeyahay markaa kadib aan wuxuu i yiray deganaashiyan tusay telefoonkeygiyaan daahiro waan u dhiibay oon dhahay bal walaalow telefoonka aniga wax aan qarsanayo iguma jiree bal raadid sawiradeedoo dhan iyo bal isku fiiriyaan dhahay walaalo macaano maxaa idinka qaldan anigoo aad dhehaysiin nin caddaan oo gaal ah migrationkiisa laygu dhihi waayay adiga ma tiide adoo la kaxaaji waxay dhahayo ma maanta aad ileedihiin aan dhahay baasaboorkan adiga ma lihid oo 1 hour aad meeshan igu rafaadinaysiin bal wax ii sheega maya waxa waaye anaga waajibka nin kale haddaan la wacday 3 waa la isku shamuumayaan ku dhahay anigu waa jeesana dhiida iga taagan tahay waxba ma qaban karo adigu hal saac marka la ijijiidayay oo wax la igu waayay oo lam telefoonkeyga u dhiibay telefoonkeyga saas loo tabagediyaan ku dhahay ilaa anaa u dhiibay wax un bal ha hagaagaano adi wariyo dhamaantii bahalkii markaa ka bacdi la siiyay isla kii kan hadda meesha saaran baa isiinayo laki raalli ah waa anagu waajibkeenan gudanayna migration aan nahay markaasaan dhahay barasho wanaagsan walaal macaan aan dhahay marka meeshooda markaa ka soo baxdo gabar baa meesha sii fadhisa haddana iyo wiilkii wuxuu yiri lakiyay sida lagu la dhaqmo waa ka xunnahay fanaanadeena qaran aan jecelnahay tahay maanta Muqdisho inaan saan lagu yeelo waa ka xunnahay gabadhiya waxay tiri ninkii haddana kan igama sii harin bal asagu migrationka waa ka soo tagaye gabadhan oo haddana checking sii sameynayso baasaboorka maxaa haddana daba dhigay wali waa iga soo daba socdaa gabadhiyo haddana meesheeda imaaday gabadhiya marka ku qaylisoo tiray wariyaa fanaanad qaranay tiri la ka xaaji wacays oo aad taqaanid maanta inaad hal saac aad gadgadisaanay tiray والله هين بيتري wax wanaagsan waxaan idin leeyahay shame on you ya tiri laakiin ana ka xal mari markaasaan dhahay abaayo waa ma santaan dhahay waa la isbarta gabadhi xataa ma aysan fiirin baasaboorkeygan ku dhahay xalashowgadi habboonore wuxuu noqday mucjisadii fanka waxay noqotay inanta kaliya kala xiratay caasimad bandhig fineedkeena wuxuu noqday kii ugu dakhliga badnaa waxaana uga soo xarooday lacag kor u dhaafaysa $100,000 $30,000 ka mid lacagtaasi oo aysan ku jirin tikitka showgaasi كاش أيا لوسي. 24 25 26 27 28 29 sidoo kale habboonore waxa la godoonsiiyay 500 gram oo dahab ah oo qiimihiisu u dhan yahay qiyaastii $10,000. waa mashruuc tiyaatarka ugu talagalay shacabka labada qaydiin aan ka sii gudbay qodobkaasi Hargeysa maanta waxa soo gaaray boqorka geeska boqor Buurmudow oo bilihii ugu dambeeyay ka maqnaa Hargeysa iyo guud ahaan Soomaaliland boqorku wuxuu ka mid ahaa salaadiin kala qoysatay nabadeen horjoogayaasha kooxaha nabadiidka ka dagaalama qaybo ka mid ah deegaanada dhaca bariga Soomaaliland wuxuu sheegay boqorka markuu dib ugu soo laabtay Hargeysa inuu uga dambeyn doono xukuumadda hadda joogta isku day ku doonayso in ay ku soo afjarto colaadaha 2 sano jirsadee ka taagan bariga Soomaaliland iyadoo xukuumaddii gogol nabadeed ku dhawaaqday salaadiintii Soomaaliland u yeedhay salaadiintii iyo dawladuna isla qaadatay in nabad lagaga shaqeeyo bari anu waxaan ka tagay iyaga colaadii ka taagan tahay waxaan filayaa de ragga hore ee gogosha dhigay uun baan la mowqif ahay halka laga bilaabanaya iyaga garanaya halka laga bilaabayana iyaga garanaya halka laga dhaqaajinayana iyagaan uga dambeynaa xukuumadda iyo salaadiintii iga horeysay ee gogosha nabadeed ku dhawaaqay waxna ilaahay ka rajaynayaa inuu dalku nabadgelyo ku noqdo
qofka la shakhsiyadda boqor burmud oo kale wuxuu u yaqaanaan ama wuxuu ku tilmaamaan dadka ku nool koonfur ilaa inta laga gaaray Kenya oo Ingiriis calaashan qof la qabsan kara markiiba deegaan dhaqan iyo dad kala nooc ah dadka noocaas oo kale ahna wuxuu u yaqaanaan dadka reer Somaliland joker hadda boqorka ma jirtaba isaga cid kaga xogaalsan bariga Sool ama waxa tiraahdaa cid kaga xogaalsan warsangeli iyo dhulbaahanta hadalkiisna waxa ka muuqda boqorka quus sida soo soo quustan wuxuu rabaa boqorka ayagana inuu soo quustaan xukuumadda hadda joogto oo nabadeen wada boqorka iyo xubnaha hadda ka tirsan xukuumadda joogtana waxay la dhacsanaayeen bilowgii kacdoonkii laasanood ayagoo markaas isahayay boqorka iyo xubnahaasi madaxweynaha waqtiga joogay Muuse Biixi Cabdi boqorka iyo xubnahaasi ka tirsan xukuumadda Somaliland waxay dhuusan mudayeen ayaa la noqday saxaro dagaalkan hadda ka socda bariga Somaliland markiisoo hore wuxuu ku bilaabay sida cid kasta og tahay kacdoon shacab kacdoonka laftigiisa wuxuu ahaa kacdoon laga soo shaqeeyay looguna talagalay shacabkaasi in lagu kiciyo markii dambena kacdoonkaasi waxa loo bedelay dagaal siyaasadeedsan looga soo horjeedo Somaliland waqtigaasi dadka qaarkood waxay aaminsanayeen dagaalkaasi bariga inuu ka dambeeyay madaxweynaha waqtiga joogay Muuse Biixi midaan laftiga lagu talagalay in lagu kala qaybiyo dadka reer Somaliland hadda xukuumaddan joogta laba mar ay isku dayday inay talaabo u qaado dhanka nabadda labadii marna ma suurtagelin mar waxay ahayd markii loo diray laascanood ergadii ka socotay dowlad deegaanka markaana ergadaasi si cad waxa loogu soo sheegay in nabad ay diyaar u yihiin qoliyahaasi ee ka dagaalama bariga Sool ama bariga Somaliland markay ergaaga noqoto magaalo oo maamul ay ka kala aramiyaan markii labaad waxay ahayd markii isla ergadaasi loo diray Boohoodle si ay isugu soo dhaweeyaan reer Boohoodle iyo reer Qulgud markaana ma suurtagelin almuhiim colaadaan ka jira bariga Somaliland inta ay taagan yihiin siyaasadahaasi aan ha ka sugin xal iyo nabad